kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada kanaalka xogta geeska aad kala socotaan arrimaha taariikha iyo fanaaniinta iyo dadka caanka siyaasiyiinta ku jiraan haddaba kanaalka subscribe saar like na saar si uu dad badan u gaaro Yurub Maxamed Cabdi Yurub Genyo waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa sanadii 1987 sidoo kale waxay fanka ka bilowday isla magaalada Hargeysa 2006 waqtigaasna waxay jirtay aan ka dabageeyay 19 sano kaliya xilligaasna wuxuu ahaa ibafurkeedii fanka iyo bilowgeedii ugu horeeyay ay ku soo galaysay fanka inta kadib maxaa dhacay Yurub Genyo isla markaasi waxay shaqadeedii fanaanimo ka bilowday kooxda qaranka Blaiska Soomaaliland waxay uga sii gudubtay kooxda New Band ee magaalada Jigjiga ka dhisan iyadoo dib ugu soo guriyo noqotay magaalada Hargeysa intaas kadib waxay aasaaseen kooxda ugu weyn geeyga Soomaalida ee xidigaha geeska oo ay ka mid ahayd aasaasayashii koowaad ee aasaasay kooxdaasi intaas kadib waxay si lama filaan uga baxday xidigaha geeska fanaanada Yurub Genyo kadib markii ay u gudubtay dhinaca Muqdisho isla markaasna ay fanaaniinta xidigaha geesku sheegeen in cod aqlabiyada kaga ansixiyeen in Yurub Genyo laga saaro kooxda xidigaha geeska iyada kaliya ma ahayn xilligaasi waxa ku jiray fanaanka Nimcaan Hilaac oo isagana out la dhahay dadka midhaha daraaseeyay isla markaasna codka aad u daraaseeyay ayaa sheegay in gabadhani ay tahay Sawtu Raxma waa qofka Soomaalida ugu haysta codka isla markaasna loo calaamad saaray boqorada codka Soomaalida iyo hablaha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inta aan codkeeda ka helin aad ayay u yar yihiin oo haddii aan ahayn sheekh ama suufiyo mar ama laba jeer waa dhageysatay codkaaga oo dhageedu ku soo dhacay haddii aad u fiirsan lahayd heesaha Yurub Genyo 2014 iyo kuwa 2019 ama 2020 ama 20 waxaad ogaan doontaa in farqi weyn u dhaxeeyo codkaas haddaba maxaad ogaan lahayd haddii aad Yurub Genyo daawan lahayd 2014 waa cajiib waxay u qaadi jirtay heesaha si degan balse hadda codkeedu sidii hore uu ka duwanaaday oo waxa ay yeelatay cod sidii hore ka macaan waana Yurub Genyo ay dadku moodayaan inay weynaan fanka ku soo gashay Yurub Genyo waa inay yar isla markaasina waxay soo gashay fanka iyadoo aad u yar Yurub Genyo waa da'ada lagu qiyaasaa 34 ilaa 38 inta u dhaxaysa waana qof aad u yar isla markaasina aan ahayn sida ay dadku moodayaan haddii ay Yurub Genyo habeenku soo martido isla markaasina aad marti soortoodna waa inaad intan diyaarisaa isla markaasina cuntooyinka ay jeceshahay ee hadda ku sheegi doonto waa in laga helaa kullay waxaan ugu jeclaanaa cuntada bariiska leedahay bariiskaada ugu jeceshahay cabitaanka waxaan u jeclahay oo yani mar walba inaan cabo aan jeclahay ilaa macaanta bal haddii aad suuqa joogto aad bacad la haysatana oo ay Yurub ku soo gaadhana waa in laga waayin dharka noocan ah dharka la xirto wallaahi dharka la baro jeclahay sida madowga kale fiyoolooga kale sidoo kale waxaan ku hayaa abwaanka ereyada sameeya ee ugu jeceshahay Yurub Genyo Yurub Genyo laftirkeeda ayaaba sheegaysa hayga degdegna asxaabta ku soo dhawaada wallahi way badan yihiin abwaanadu laakiin abwaan aad bili isku leedihiin oo yani aad ma garanaysaa hadee wixii ay isku soo baxdaan inuu waxa jirta abwaan intuu hees ku dhiibo heestii aanay ma garanaysaa soconina ama dadku aanay dhigeysanin iyo abwaan heestu ku dhiibaabada ma garanaysaa ay qarxayso day Soomaalida ka gadmayso marka kulli doorta ninka la laab Saalax xasan dhuxul laab Saalax ereyadiisan kulli aan waxaan malaynayaa aan bili isku leenahay kulli heesaa ay qarxay ee lagu bartay Soomaali kaga caan baxay kulli heesiisa badan haddaba daawada adigu ma xasuusataa heestii ugu horeysay ee ay qaado Yurub Genyo
aniga laftarkayga waan xasuustaa xagga hore muuqaalkan waan soo dhigay balse waxaan idin tusi doonaa iyadoo sheegaysa heestii ugu horreysay ay ku soo shaacbaxday isla markaasina ay qaaday adaan gooriyo ayaan baadha adaan gooriyo ayaan gooni ku geeyanka tirsaday adaan gobolkii dhacaba miliyahow aan ku goobayaa tahay heestaasa kuugu horeysay heesta kana way iigu xigeen markii ka dambeysay laakiin heestii yurubgeeyinaan hay laygu bartay heestaas daawada haddii aad ka bogatay taariikhda yurubgeeyo oo ay markayga annaga dhammaatay adiga waa markaagii waa inaad subscribe noo saartaa gambaleelka yarka aad furataa isla markaasina haddii aad awooddo aad sii share garaysaa haddaba taariikhda yurubgeeyo intaasaan kusoo gabagabaynaynaa taariikhaha iyo dadka caanka fanaaniintu ay ku jiraan halkan kala soco oo gambaleelka yarka furo isla markaasina la soco